qisadeena maanta waxay ku saabsan tahay nin go'aansaday xaaskiisa inuu furo. haddaba ninkaas maxaa ku qasbaya inuu go'aankaas gaaro xaaskiisa inuu furo? xaaskiisa markuu u sheegane maxay samayn doontaa? gurigaasne halkuu ku dambayn doonaa? فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولا يوجدان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة والبئيو قصة عصب. قصة ما أنت وحي قصة بسنتهاي فاميلي دوري 10 سنة وذا جوجي سدح عرفنا لها نينكي مالي والبو شقدو اسك آدي جيري وسو نقن جيري وحوسو نقن جيري طبعا قريسو ديارسن حاسكيسا شقدو waxaad guriga inay joogto ilmaha ay diyaariso cuntada ay kariso dharka ay dhaqdo shaqadii ugu culuseedii haysa asiga laakiin banaanku bu'aada uu soo shaqeynaa hal shaqo qabana uu soo noqona laakiin gabadhii dhaqitaankii cunto karitaankii ilmihii hagaajintooda waxbaritaankooda yacni 10 qof oo shaqada loogu talagalay ay kaligeeda haysa iyadoo saase wax walbo saytay u socdeen si fiican ay u socdeen gabadhana shaqadeeda caadi u qabsanaysay ninka shaqadiisa banaanka caadi u qabsanayay ilaa wax isbedeleen ninka wuxuu arkay marka guriga markuu yimaado ma diyaarsano cuntadii waa late waaye xaajiyada markasta way bixaysaa banaankii aadaysaa way soo noqonaysaa marmarka qaarkood wuxuu imaanaa iyadoo maqan marmarka qaarkood wuxuu imaanaa iyadoo markii soo gashay marmarka qaarkood wuxuu imaanaa gurigoo diyaarsan laakiin badi waxay noqotay gurigii sidii hore inuu iska bedelay xaajiyada joogitaankeeda iyo cuntada la diyaarinayay iyo shaqada dhan ay haysay wuxuu arkay inay isbedeleen ninkii marka arrintii uu la yaabay wuxuu isweydiiyay xaaska ma weydiisaa si wax jiraan mise iska aamustaa wuxuu go'aansaday inuusan weydiinin wuxuu yiri iska sug xoogo wax isbedeli ma lahan xaaska sidii markas banaanku aadaysaa gurigiina sidii waaye ninkii wuxuu go'aansaday marka xaajiyadan inuu iska furo laakiin wuxuu yiri hadda daafurtid ama banaanku soo dhacdaa wuxuu yiri marka gabar kale si shukaanso iyadoo guriga joogtid wuxuu bilaabay marka gabdho inuu banaanka raadsado almuhim gabadha meesha kala shaqeeyaan ay isbarteen waxay ku heshiiyeen marka inay is aroosaan markii wax dhan soo dhamaad ay soo dhameysteen ayuu wuxuu yiri marka hadda waqtiga xaajida u sheegi lahaa la gaaray habeenada kamid oo go'aansaday marka inuu u sheego wuu yimid guriga markuu yimid wuxuu arkay gurigiyo nadiif ah cuntadiyo diyaarsan ilmihiyo diyaarsan oo homework ka shaqeynayo iyo xaajidu sugayso u dhoo la cadeynayso subaxii soo kacay quraacdi diyaar oo si shaliyo kale inuu hadal dhaho rabaay wuxuu mashquul iska dhigo yiri oo si baxa kabiga uu yiri wuxuu iska dhig waxaan quraacda u jeedin kaale quraaca lagu dhahay wuxuu may waa si baxa may waxay u duubtay markoo kan qaaday tiri baxdiyo qaatay wuxuu maqal inaan wax ku sheegan rabaa way qosay waxay tiri wax kasta ay sheegays maxaa waay uu baxay haddana habeenkii uu soo noqday sayntii marka dam wuxuu go'aansaday marka inuu soo qoro risaalo uu soo qoro ilaaho kale hebloy maqal ani waxaan go'aansaday marka inaan ku furo naa kala guursana wax allaala waxa rabtidne diyaaran kula ahay waa ku siina gurigu yimid cuntadii diyaar waaye laakiin sidii xali habeen horaato kala ma ahan markaas uu yiri saytiin fiicantiin markaas ay jikadii ku jirta haa waa fiican alxamdulillah way tiri way soo baxday cunto badan ay soo waday markaas uu yiri telefoonkaaga text message ku soo dirma heshay markaas uu waxay tiri may wallahi telefoonka sansaaki meel u dhigay ma ba arkin buu waxa maleynaa inuu dansan yahay cuntada meesha soo dhigtay wuxuu yiri maqal waxaan rabaa inaan kuu sheego asina uu arkay risaalada inaan la aqrinin marka wuxuu rabaa inaan kuu sheego aniga waxaan go'aansaday inaan kala guursado SMS-ka intaasan kugu soo qoray marka waxaan rabaa kala inaan guursado adigana wuxuu yiri maalmaha ku jeesiya mashquul u ahayd xoriyadaadan ku siina ilmaha korso gurigaaga iyo biilkaaga waa ku siina xaraata wixii maanta ka dambeeyo saasaan go'aansaday naagtii hadalku way rumayso weysay riyamiya misrun waaye waxay bilaawday marka ilina ka timid ninka ilinta markuu arkay wuxuu sameeyo garan waaye oo iska baxay marka guriga xataa ma joogo iska baxay المهم قبل إلهي بريدي إله وإيجي دايتر خلاص كل شيء بيدك
waxa adiga qortun baa dhacaya xibla markii uu ducoos ninkeeda maalinta waa wacdi marka wuxuu ku tiri inaan kula hadlaan raba wax kasta xoraatay laakiin aan kula hadlaan raba hal mar soo noqo wuu soo noqday markaas wuxuu ku tiri hadaa go'aansatay ay furtid diyaar wax dhib ma lahan hadaa go'aansatay laakiin aan guursatana diyaar waaye laakiin hal arrin aan ka codsanaa ilmahaaga imtixaankooda final school final class waxa uu dhiman final exam waxa uu dhiman 2 isbuuc uu dhiman labadaas isbuuc inaana la joogtid ayaan ka codsanaa ma sameyn kartaa intaas markaas uu yiri ha 2 isbuuc waa idin la jooga naagtu waxay go'aansatay marka sidii hore oo loo tacaamuli jirtay si ka fiican oo la tacaamusho qusulkii iyo cuntadii wanaagsaneed iyo sidii ugu waday isbuuci koobaad waa dhamaaday gabadha sideeda waaye laakiin habeen walba ilaahay soo kacday way bariday isbuuci labaad intiisan dhamaan ninka marka maalin qolku iska galay marka wuxuu bilaabay markii inuu gidgidiyo albumka sawirada ku yaalo rabay inuu gidgidiyo sawirada asoo kala gidinayo wuxuu ku arkay warqad oo dhakhtar soo qoray oo xaaskiisa ay leedahay oo la leeyahay oo sheegayso inuu kansar ka galay naaska ka galay ninkii markuu wixii arkay wuu naxay wuxuu ogaaday marka xaaskiisa waxay la mashquulsaneedba inay tahay xanuunkaas warqadii uu aqriyay waxaa ku qoran isbuucii 4 maalmood inay dhakhtarka tagto si daawooyin loo siiyo ninkii markuu intii aqriyay wuu naxay wuu soo baxay warqadii uu soo qaaday wuxuu ku yiri maxaa igu sheegaysaa de arrintan jirto markaas ay tiri marhabin aan ku sheega waxaana ogaa inaa warqadaas aadan fiirinayna goorma kugu dambeysay meeshaas aa fiirisid bilan gurigeen umaadan soo jeedin meesha waxa uu galiibay inaan ka qariyaan rabay haddana kaama dalbana ina ii naxariisatid ama jiradaas ajligeedii ugu joogtid ay tiri 2 isbuucan ku qabtay maalma ka dhiman markii maalmaha ku dhamaadane furitaankeygiisii kiis kaluus ninkii wuxuu ku yiri mayasaas ma ahan waa ka gardaranahay raali ahaaw inaan ku weydiiyay ahayd dhibaatada ku haysa maxay tahay ani waxyaalaha igu qasbay waxay ahayd saan ku aqaan inaa iska bedeshay guriga markasta ma joogin markaan imaado marmarka qaarkood waxaan ka ahayn cuntadii sidii hore ma ahan laakiin maalmaha u dambeysay waxaan la yaabay uu dhahay habeenkiina anigoo jiifo adoo shaqaynaysidaan jiiftaa subaxiina waxaan soo kacaa adigoo shaqaynaysid waxaan isweydiiyey goormay seexataa taasaan isweydiiyey markaas waxay ku tiri habeenkii dhan 2 saac 3 saac ka seexdaa maalintii marka adigana shaqo aadid caruurtana iskuulka aada ayaan seexan jiray ninka marka wuxuu ku yiri walaali waa ka gardaranahay 100% cafisan ka dalbana qof xunaan noqday diyaar uma hadda inaan ku furo qof saan oo kale inaan waayo diyaar uma ihi ilmihaygu intaan sanay jira iskuulka dhigna maalin homework uma dhigin intaan maalin cunto ii sameynaysay intaan sana aqabnay bilooyinka u dambeeyay baa saan noqotay intii sana wanaaga ay ii sameynaysay kista خلاص wuxuu yiri iska tag laakiin ana diyaar uma ihi inaan ku furo waa ku jecelahay dambina waa ka gale gabadhii markay way faraxday markay waxay tiri waayahay ani baa ku jecelahay waana wada joogeena gurigii sidii ayuu haddana ku soo noqday nolol wanaagsan gabadheena ilaahay uu ka caafiyay kansarkii walaalayaal qisadeena intaas ay ku eg tahay laakiin qisadan waa qiso aad u faa'iido badan meel badan taabanayso qaar kamid ah idin sheega inta kalena idinka soo qora maskaxdiina waxa ku jiro soo qor khayr Allah ku siiye faa'iidada koobaad guriga waxyaaluhu ku taagan yahay waxa ugu weyn waxa waaye communicationka wada hadalka qofka haduu qofka kala wax ka arko dhibsado ama qalad uu arko ama xumaan uu arko waxa ugu horeeyo loo baahan yahay inuu sameeyo waxa waaye inuu weydiiyo si wanaagsan oo akhlaaq ku jirto degan inuu ku weydiiyo ninka naagtiisu wuxuu arkay bixayso ninkan wuxuu arkay naagtiisu banaanka wax badan aadayso wuxuu arkay gurigiyo isdhaxdaadsan wuxuu arkay cuntadiyo aan diyaarsaneyn waxa laga baahnaa marka inuu isweydiiyo war maxaa ku qasbay xaajiyadaada inay saan sameeyso hadduu jawaabta asiga waayana waxa fiicneed inuu iyada la fariisto oo weydiiyo si wax u jiraan oo ku dhaho faa'iidada labaad iska ilaali dhanniga malaha xun ninkan waxyaalaha aad u sii bushkiray waxa kamid ah waxa
naagtaan intay aadaa maalin walbo waa shaki soo majeedid shakigana wuxuu ku gelinaa inaa qofkan wax xun ka malaysid taas waa xataa ilaahi subxaanahu watacaala kitaabkiisa inaaga digay nabiga sala allahu calayhi wasalamna xadiid muttafaq caleyh noogu sheegay ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu yidhi يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن محال ربيو إن بعض الظن إثم نبينا صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والظن اسك إلى لي ضذو ظنك ملهان فإن الظن أكذب الحديث ظنك ملهان وبين للشيغو تنقوين وهذا بين واي قفك مسلمك وحواي قف بريء واي إلى لغو أركو وح لغو تهمو فإذا سدحات إن لسور قليوا وناكسن تحي قبدان حدي ننكيذا أي أشيغي لهيد لباتذا كحيستو وحالغيابا إنو أقرقاري لهاي أما أقرابي لهاي لغيابا laakiin waxeeda way qarsatay nin walba waxa laga inuusan warqada arkina laga yaabaa nin walba inuusan fiirina laga yaabaa warqada meesha aad dhigtay fiirina laga yaabaa laakiin labada qofoodba hadduu qof dhibaato maraayo ama dhibaato soo gaartay ama culays uu dareemo waxa fiican qofka kale inuu u sheego waxa qarsatid waa ku qarsanayeen ha qarsanin dhibaato ku soo gaartay qofka la wadaag qof kaligiis istaagi kara ma jirto qof ka deeqtoone ma jirto marka dhib haduu ku soo gaaro u sheeg waxa dhahday dhibaatadaas ay ugu dhacday gaarsii qofka u sheeg fiiri wuxuu kula qabanayo inuu ku ducooya laga yaabaa inuu ku garaaba laga yaabaa inuu meel ka fiican ku geeyo laga yaabaa faa'iidada afaraad hadaa aragtid qofka inaa ka qaldantihid ama aad ku xadgudubtay ama wax qaldan ah ku sameysay immediately sida u dhaqsaha badan waxa loo baahan yahay inaa qaladkaaga qaadatid raali gelina ka bixisid waxa halaysayna hagaajisid ayaa loo baahan yahay marka ninkan fiiri hadda markuu arkay inuu xaajidiis ku xadgudbay xaqiiqada markuu ogaaday wuu raali gelin nin xun ma ahan waxa ka gaabtay even though waxa fiinad inuu wareystaa fiinad maxaa jiro muusan wareysanin iidan uma sheegin labadooda marka waxa waaye qaladka geesay ku leeyihiin laakiin say noqotaba waxa loo baahan yahay hadaa aragtid inaa qaldantihid qaladkaaga qaado ka cudur daaro waxa halaysayna hagaaji khayr allah ku siiyo aniita noqonin kibirniyo ku diidina arrimaha samaysid faa'iidada shanaad ugu muhiimsan guriga wuxuu ku taagan yahay gabadha waaye gabarta haday markasto quslayso gurigeeda nadiif yahay ninkeeda u dhool cadeynayso wixii laga rabay ay sameynayso uqsimu billah boqolkiiba 90 ka badan gurigaas uu taagnaana hada fiiri ninka waxa go'aanka ahaa inuu u sheego inuu furo laakiin markuu arkay awood uu yeelan waayo inuu sameeyo qofka ibn aadan saas waay qof wanaag ku sameeynayo fiicnaan ku sameeynayo ku dhool cadeynayo inaad timaada hadal uu ka naxma dhigi kartid marka sidaa darteed waa cashir gabdhaha loo baahan yahay inay qaataan markasto ninkaaga markuu guriga yimaado dhibaato kasto jirto u dhool caday soo dhawey laana ma ogid wuxuu banaanka kala soo kulmay ma ogid iyo banaanka kula soo kulmay arintaas cashira ku noqdo khayr allah ku siiyo faa'iidada lixaad todobaad iyo sideedaad sagaalaad tobanaad wad inta wadi kartid adiga soo qor khayr allah ku siiyo bakhiil ha noqonin جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم وإنه جمعة soo socota iyo qisa cusub إلى جمعة soo socota laga gaaray maxaa laga rabaa dhageyso ka faa'iideyso ku amal fal faa'iidada soo qor walaalaha kale u sii gudbi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله